walaalayaal sanqadha aad u weyn baa baxaysa sanqadha aad u weyn ayaa baxaysa balaan dhageysano waxaan weydiinayaa jawaab sharci ah dad wax garada oo warbaahinta ku hadlay oo masaa'ilkan u cadeeya dadka muslimiinta ah hadaa culimada tihiin kamaanaan gaabin waanaan cadeynayna insha Allah intii ilaahayna awood noo siiyo wadankan islaamka gaaladu xabaalama ku aasan karaan meydkooda waxa kale oo raacaysa kaniisad ma ka dhisan karaan jawaabahaas aan doonaynaa inaan ka jawaabno goobtan aan taaganahay waqti hore ayaan ka hadlay anigoo ka hadlaya kaniisad la dhisay oo la furay Hargeysa dhexdeeda kelmadeeduna maalinta waxaan halqabsi uga dhigay Hargeysa masaajid iyo kaniisad baa siman ma maqlaysaan adigu waxdaas badan baa dhacday meelo badan baan soo maray halkii baan taaganay maanta iyadii baan ka hadlay maxkamad baan galay kaniisadii maalinta aan ka hadlay su'aalo adag baa la iga weydiiyay waxyaabihii sababay xarigeygana la baroon bay ka ahay maantana waan u taaganahay horta mas'alada sharciga aan ku dhawaaqo binaa'ul kanaa'is fi bilad almuslimiin la siyama jasiirat al'arab la yajuz qad'an wadan islaama kaniisad in laga bineeyo gaar ahaan jasiiradda carbeed sinaba kuma banaana oo maxaa loo baneeyay maxaa loo diidayaa inay masaajidada ka dhisnaa dhulkoodii masaajidada ka dhisnay waa ku ilaahay lagu caabuday ilaahay koonka abuurtay kitaabka uu soo dejiyay nabi maxamed ka dhigay khaatimul anbiya in rasaa'ilka oo dhan lagu khatimo diimi hore samaawiga aan nasakhay tan ee munxarifka la bedelay waxba ka jirina baadilka ka dhigay waa isagu sharciyeeyay lagu caabudo arlada meel walba inagu waxaan u diidaynaa li'annaha baytu shirki wa bayt sanam ilaahay qeyrkii lagu caabudo wa bayt sanam oo ilaahay qeyrkii lagu caabudo saasaarey u banaanay jasiiratul arab laha khaasiya laana nabiga sallallahu alayhi wa sallam qaal la yajtami fi jasiiratil arab diinan maxaad u xidhi jasiiradda carbeed laba diimood kuma kulmi karaan ee laysa illa diinul islaam laysa illa diinul islaam diin islaam mooyaane wax kale laga ogolayn nabiguna ka rabo buu diimaha kale maanta lagu soo celiyay buudiiskii baa lagu soo celiyay oo kiristaankii baa lagu soo celiyay oo yahuudi baa lagu soo celiyay oo mid kale imaka cusub casrigan soo baxday diinul ibraahimiya oo waxba midaynaysa baa laga dhisay imaka wuxuu nabi maxamed ku dardaarmayna waa la jabiyay marka halkan Hargeysa maalintii axadda munaasabad baa ka dhacay munaasabadaasi intaan u gelin yaa lagu aasi karaa odayaashii caqliga badnaa berberay kaga saxeynaan lagu aasin laakiin markii dagaalkii dhacay labaad xoog buu ugu aasi laguma aasi karo markay maraasim leeday macnaha tashriif iyo hay'ad qaabdiineeda marka wax loo aasayo laguma aasi karo laakiin kaafir baqtiyay oo hadduu doono dhulkaba u dhashay carrada lagu duugaya waa la qarinaya wax aba yaraatee boorka lagu duuga mooyo wax kale lama samaynayo wax maraasim oo la samaynaya oo hay'ad qaab waxa loo aasi ma jiraan qurunkiisa waa bashar binaadane waa iska qarinayna wax kale ma leh laakiin haday maraasim sameynayaan way qaadayaan wadankooda geynayaan wadanka kuma aasi karaan mamnuuc xaraam weeyaan taasi mamnuuc xaraam weeyaan ma banaana markaas weeyaan halkan maxaa ka dhacaya markaa waxa la leeyahay maalintii axaddi waa maalinta yiraahdaan gaaladu waa xusnaa waxbaan xusnaa maalinta axadda maalintii kaniisada aan ka hadlayay waxa shariicada islaamku kaniisad wadan islaam lagama dhisi karo haddii wadanka gaal lahayd oo la qabsaday oo heshiis ay ku galaan noo daaya wixii noo dhisna oo aan isdhiibno waa laga yeelaya laakiin hijra lama mari karo dibna looma dayactiri karo ilaa ay ka dumayso waa tii loogu yimi meelaan loogu iman asalkeedu islaam yahay aslan bal lagama binayn karo maalintii kaniisada mowqifka sharcigan anigu cadeeyay wuxuu ahaa kaniisada in cagaf la mariyo ama bakhaar ka dhigato dawladdu istoor ay wax dhigato sidaana waa loo isticmaali karaa laakiin xeertaja markii la sameeyay wasaaradda awqaafta iyo wadaadda waxay isku afkarteen in la xidhona diinta kuma jirtee in laga takhaluso madaahirteeda iyo maxaan ku dhahaa amaaraadkeeda iyo tilmaamaheeda oo dhan bay in la yidhaha dadka waa la xidhay ma yahay haba la xidhee hadday xadhigii ku joogayso dee dhallaan raad weyn baynu naho waana ila khiyaaminaya maalintaaba khiyaanada socoto waa arkaynay lama xidhine dhabaha tooraha ayay ahaayeen oo qulqul binaadan oo baabuur iyo dadba way ku qulqulayeen sida jiiraankeedu noo sheegay warbaahinta waxaa soo faafiyay jiiraankeeda ilaan hariya habeen laguma kala baxo haddaad tidhaahdo war wadaadu ma ahay way xidhantayna orado intaad kamarada ku rakibto kamaradahana gaar cadaalada u dir bal kamarada waxa ka soo baxaynu eegi doonaa kamarada waxa ka soo baxa ayaynu eegi doonaa diyaarka hariya habeenba wixii galaya ka baxaya qabanaysa taa maxaan ka tiigsanaynaa duhur dharaara maalintii axaddi wafdi ingiriiska ka yimi iyo wafdi Somaliland oo reer Hargeysa anigu hebelow iyo heblaayo idin oran maayo ama dhaqaatiir noqda ama siyaasi noqda ama abwaari noqda ama sheeko kale noqda ama indheer noqda waxa doonaysaan ba noqda meesha day idinka ay soo dhigay banaan intii umada hormuudka u ahayd ayaa
markaa meesha taagtaagnay oo si fiican looga dheehanayay hanoo muusaynine mabdiina cadaystaan leenahay hanoo muusaynine mabaadida aad leedihiin ummadda u sheega tuhmadna waa idinka qabnaayeen asbaabna way leedahay tuhmadaasi iskamaanaan kiin tuhmine asbaabay leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ogolaan mana bannayn mubaasharatu dacwa lighayri diin alislaam fii bilaadi almuslimiin fii jasiirati alcarab walaa fii gayriha ilaahay marna ma bannaynin dacwad ku baaqaysa diin oo aan islaamnimo ahayn in lala yimaado wadamada islaamka dhulka jasiirada carbeed iyo meel kala toona ma bannaana ina addiina cinda allahi alislaam diin islaam baa la ogoliyey kuwaasi dacwad ma laha lahu dacwatu lxaq waladiina yadcuuna min duunihi laa yastajiibuuna lahum bishay ilaahay unbaa dacwad xaqa leh asnaamta iyo waxaa la caabudayaana waxay ajiibayaana ma jirto dacwadna ma laha diin kale lagu baaqi karaana ma jirto ilaahay baa qur-aanka ku yidhi waman yabtaqi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin axadka diin ba raadiya waxaan islaamnimo ahayn sidaba loogama aqbalaya adduun iyo aakhiratoona aakhira marka la yimaadana waa mid halaagsamay oo khasaaray jumlada halaagsantee khasaartayna uu ku jira maalinka qiyaama haddaad doonaysaan inaad halaagsantaan oo khasaartaan halkaasaa maraysaan wailaa haddii kalena towbadaa celinaysaan towbad waxaan kaloo tilmaamayaa waddanka waxaa ka jira ishaara khadraa macnaha bululeyrka griimka ee doogada abaa la shiday inay bannaan tahay diimuha in la faafiyo waxaana la khilaafay sharaa'ic samaawiya wa acraaf alardiya shareecadii ilaahay samada ka soo dejiyey oo waxaan ogolayn iyo acraafta bini aadanku qawaaniinta wadcigay dhigteen ee idinkuma dhigateen baa khilaafteen oo waxaa ku qoran dastuurkan wadciga shareecada khilaafsan dalka diin kale laguma faafin karaa ku qoran hadhcad baa khilaafteen diin kalaa lagu faafinaya maalintii dhoweyd odayaashii alamr ibn macruuf halkanay nagala hadleen waxaanay noo sheegeen dadkii kiristaanka faafinaya waxba laga qaban waaya rag iyo dumarba waxaanay weliba hoos noo yidhaahdeen gabadha reer hargeysa way hadasho waxay tidhi haba naga qaadi kari maysaano ninkii odayga ahaa ee alamr ibn macruuf ka mid ahaa weliba waan kaa xishoonayaa oday baa tahe wax kalaan kugu samayn lahaa hase yeeshee rag baanu isogno waxba nagama qaadi kartaan 10 kun oo qoysna waanu haynaa anagu 10 kun oo qoys baanu haynaa bay yidhahdeen hargeysa 10 kun oo qoys ay hayaan maxaa ku hadhay waa sida ay sheeganayaan oo markhaati loo hayo dhinacna waa loo dhaqaaji waayey bale hadday shaqaynaysaa dacwaddii reerahay mas-uulka ka ahayd bay telefoonka wada diraysaa buu yidhi miday lacag u dirayso mooji miday la hadlayso mooji miday wax u sheegayso mooji waxbay saa isu daba dhigayaan halkanna kiniisadaa la furayaa waa la xidhay baa la yidhi been bay noqotay maanta oo ma xidhna xaddii baa lagu beeniyey xidhnaanta markii la qabtay maraasimta loo aastiimeed oo la leeyahay askartii ingiriiska dagaalkii labaad ee adduunyada kaga dhimatay kow waa midaan hore u soo sheegno shareecada islaamka kuma banaana waddanka in aastiimeed kiristaan iyo mid yahuudi iyo mid majuusi iyo mid wax bula midnaba lagu qabto intabana waa lagu qabtay kii kiristaankana waa lagu qabtay buudiiskii jaynaha ahaana waa kii dadka dhuxulaha ku gubayey soo maaha way ka dhacday waxaa kaloo ka dhacay kaniisadii oo hadhcad furan oo xaflad lagu dhigay ma haysa indhahaago shana ee gabadhi masuuji baa la odhan jiray gabadhi maxay ahayd masuuji baa la odhan jiray gabadhii berigii furtay maxay ahayd gabadhi magaceed waan iloobay gabadhii maalintii soo dushay tiri shaqo weyn baan qabto tabarruca oo maxaad furtay kaniisad baan furay bay tiri kaniisadii maalintii ay furtay anigu sanad ka hor baan ogaa waanan ka sii hadlay waayo waxaa ku faanay qolada markaasi roman catholiga boobka weyn ee halkaa jooga ee markaa ayaa ku sii faanoo yidhi geeska afrika kaniisad baan ka furnay iyadoo weli la shaacin hal sano ka bacdi jeelkaan ku maqlay 16 baan soo baxay aakhirkiisii dabeedna 6 bilood bay meesha fadhiday dabaraysay sidii way furi lahayd oo kulba dhaqaatiirta waddanka lagu daweeyo ku soo dhex gabanaysay markii dambana way iclaamisay markii dambe waxaana lagu yidhi already way iska dhammaatay gabadhiina waa la mustaafriyey kaniisadiina waa la xidhay dallaan baa qurux ari baa qurux loo garaacaya ari ayaa qurux loo garaacaya dad yahow waa sii jeedaan baan idinku leeyahay bal ma idin soo jeesan waxaanse ku soo khatimayaa dadka magacyada teetalka xambaarsan ee goobjoogga ka halkaa xaadiray waxaad ogaataan xukunka shareecada islaamku arrintaa wuxuu ka qabo sheekh alislaam ibnu taymiya maxamed ibn cabdiwahaab baa waxa uu yidhi man lam yukafir almushrikiin aw shaka fii kufrihim aw saxaxa madhabahum kafar axadka gaalada aan gaalo u ictiqaadin ee aan gaalaysin ama ka shakiya gaalnimadooda ama madhabkooda iyo dariiqadooda wax saxa ka dhigay u arkaa wuu gaaloobay wallah tabaaraka wa tacaala sama almushrikiina kufaara ilaahay gaalada wuxuu ku magacaabay gaalo wajacala ma'waahum jahannam hoygooduna wuxuu ka dhigay jahannamo naarta la yidhaahda ayay u hooyanayaan ee ogaada ninka jahannamo u hooyanayow kuwa ayaad raacaysaa markaasi weeyaan ilaahay wuxuu leeyahay in aladiina kafaruu min ahli alkitaabi waalmushrikiina fii naari jahannama khaalidiina fiiha ulaa'ika hum sharu lbariya kuwa gaalada ah baa la yidhi isku soo duudubee ahlu kitaabka iyo kuwa mushrikiinta waxa weeyaan fii naari jahannam
وأنا الشر البريء بلا يقتل مامي مخلوق وحالا أبوري والشر بديهن هل كان محاي نوغا صوبحي لمنك هو قالوا إلهي باكو مقعاري لمنك هو أهل جهنم إلهي بانا أقرتي وعقيدة دو حبا قيسي قفك وروايا وقال قفك وروايا وإن واصح إني قاليه هنا كشكيا قفك إذا ما يوح صحبي هيان أما دينه هو وضا صحي لهذا وقال هدو إسلام هو مرتد دينتو كسور نقوليا هو شهادانيا ديك لو وحو لها بالله مرينيا هدي marka jirto maxkamadda islaam qaayimi waa inuu ashahaato qofka maanta ku saboodaya sax warka waa inuu ashahaato haduu islaamaha haduu wax kale huursanayna isaga u taala anagu taameedan sheegi meeshan deewal eg shaaca la qaadi Soomaa maradii shaaca la qaado anaguna diirkaan ka rogayna waxba qarin mayno waxaan canaananayaa warbaahinta oo dhan oo niman baa iska Facebook iyo ku hadlaya iska odayaal iyo dhalinyaro warbaahinta idinka qudhiina ma ishaarada idin taagan haday tahay maya waxaan leenahay xaqiina qaata ila waajiba idinka saaran umada Soomaha umada inaad u soo bayaamisaan waxa cusub ee soo tajaduda shariya khayr midkaad uga digaysaan iyo midkaad ku boorinaysaan waa mid wadaado idinkana maalin walba waxa la idin hadoodilo dadweynowna ceelna uma qodna ceelal yana uma maqna